mursal Ismaaciil Cumar oo loo garan og yahay Mursal Xayd isla markaana ah murashax u taagan doorashada golaha deegaanka ee gobolka Gabley kana shaqeeya arrimaha bulshada ayaa markii labaad soo gaarsiiyay sadaqo uu wakiil ka ahaa qoys danyar ah oo qaar ka mid ah xanuunsan yihiin oo degan deegaanka Agamsaha. sadaqo uu wakiil ka ahaa Mursal ayaa ugu baaqay bulshada muxsiniinta ah ee guud ahaan caalamka inay qoyskan danyarta ah soo gaarsiiyaan sadaqo si bulshada si loo geeyo dhakhtar dibadeed. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan hadda la joognaa xaafadii ubadku ka xanuunsanayeen ee baraha bulshada laga baahiyay, taasi oo ay dad badan ka soo jawaabeen, qaar badanna lacag noo soo dhiibeen oo hore ugu wareejinay. maantana in kale loo soo dhiibay oo jecel lahayn inaan ku wareejino. waad saad arkaysaan carruurtu waa kuwa iska xanuunsanaya, iska dhibaataysan yihiin. qoyskuna waa qoyska danyarta ah aan awoodin inay maxay ahayday dhakhtarada fogfog ay geeyaan. intii taagooga way geeyeen oo way soo mareen oo dhakhaatiir badan bay geeyeen, balse waxba laga qaban kari waayay. waxay u baahan yihiin la caawiyo, hadday tahay masruuf iyo hadday tahay sidii ay dhakhtar dibadeed u tegi lahaayeen ayay u baahan yihiin. insha allah maxay ahayday waxaan anaguna halkan maanta aan ku wadaa oon ku wareejin doona hadduu la yidhaahdo qadar yar oo lacaga oo ay soo igmadeen dad walaalo muxsiniina oo dibadda jooga oo ku sadaqaystay lacagtan horena lacag hore igu soo dhiibay. waxaan jecelahay markaa imika inaan ku wareejiyo xoogaagii lacagta ah oo xaafadda waa lacagtaasoo ah $210 oo ay soo direen walaalada dibadda ah iyo inaan ka soo qaaday qof muxsina oo magaalada ah. waxaan u soo jeedin lahaa bulshooyinka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay ka qayb qaataan sidii ay u soo caawin lahaayeen dadka danyarta ah ee dhibaataysan, ay wax ugu qaban lahaayeen hadday tahay dhakhtar iyo hadday tahay adduun wixii ay u baahan yihiin. saad arkaysaan waa qoys danyar waxay degan yihiin buulka, beer banaanna way haystaan ciddii caawin karta wax ku tari karta. waxaan ka gudoomayaa ciddii maanta carruurta yaryar maxay haday soo xasuusatay meel kastay joogaanba nin waliba wixii uu la baxay if iyo aakhiraba isaga iska leh. waxaan aad iyo aad baan uga gudoomay inamada ayag joogana aad iyo aad bay wallaahi ila dadaaleen. marka waxay iyagana ilaahay ka siiyo kii soo xasuustayna ilaahay ka siiyo xasanaadka miisaanka xaqa ilaahay ugu daro, miisaanka xaqa ilaahay ugu daro. ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu janno firdowsa ilaahay ka waraabiyo albaabada jannada kuwii ugu horeeyay. wixii xasuustay iyo wixii xasuusan doonaba ummadda nebi maxamed ee muslimiinta ah ee meel walba jooga, waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay miisaanka xasanaadka inuu ilaahay ugu daro kii wax soo xasuustay iyo kii ilaahay maanta maxay soo xasuusan doonaba. waxa weeyaan alxamdulillaah rabbil caalamiin. ilaahay baan ugu shukriyayaa, aniguna ilaahay baan ugu xamdiyayaa. markaa waxa weeye carruurta yaryar in badan waan la soo dadaalay, wixii aan u qaban kari lahaa ayaa kan marin kari lahaa oo la soo maray. laakiin waxay noqotay maanta meel wax adduun maanta meelan ku geeyo oo maanta aanu awoodo markaan u waayay. ilaahay baan ugu shukriyo halkii ilaahay i dhigay ayaan fadhiyaa. markaa ninka ilaahay ku xamdiyi waayayna waxa weeye waa nin aan iimaan lahayn. markaa waxa weeyaan walaalahayga meel walba iga soo xasuustay, walaalahayga soo caawiyey, walaalahayga imigaba meel kastay joogaanba ii damqaday. waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay janno firdowsa inuu ilaahay ka waraabiyo. anigana carruurta 4 ciyaala ee maanta aanan awood han meel ku geeya aanan u haysanin. ilaahay idankii waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay sidaa maanta ay igu soo dadaalayaan ummadda muslimiintii inuu ilaahay iyagana maxay hayday aanu khasaarin wixii ay maanta igu soo dadaaleen oo ilaahay caafimaad sareecana indhahoogiyo faya ilaahay shimbir khayr qaba
ilaahay meel uun iiga soo diro markaa waxa weeye inamadaa ii halgamaya ii garab jooga waxa weeyaan waa raggaasi maanta afartaa qoyskaa dhan ee maanta han hayo waa inama ka ooyay weeyaan alxamdulillaah iyagana waxaan leeyahay ilaahay idankii waxaan idiin bari muraadkooga iyagana ilaahay midigta ha ka siiyo anigana ilaahay wixii la igu soo caawiyey iyo wixii maanta la ii qabtayba inuu ilaahay shimbir khayr qaba caruurtaa yaryar inuu ilaahay iigu soo diro ayaan ilaahay hor joogaa muuse xuseen xasan Sam News TV gobolka Gabiley.